السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan sababta aad ugu raaxaysan lahayd wax akhriska. insha Allah muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida ugu raaxaysan lahayn wax akhriska, talaabooyinka aan qaadanayn si aan ugu raaxaysan waxaan akhrinayno iyo sida aan ugu dayno dadka wax akhriska badan. daawasho wacan magacaygu waa Shimhaad Maxamed Jalankaad naga daawanaysan Shimhaad Xaaji. fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, la wadaagto asxaabtaada, subscribe inoo saarto si aan u soo badano muuqaalo caynkana. anigana waxay tahay dhiirigelin si aad la wadaago mowduucyo caynkana. waan ogahay inaad akhrinayso wax badan, laakiin waxaa ogaataa inaad ku raaxaysanin wax akhriskaas. sanadka hadda dhammaanaya waxaan garwaaqsaday inay muhiim kuu tahay inaad ku raaxaysato wax akhriska. sababta ugu baahanta waxaan kuugu sharxi doonaa muuqaalkan ee nala soco. waxaan idinla wadaagi doonaa sababtay u fiicanta inaad ku raaxaysato wax akhrinta iyo sida aad ugu dabaqi lahayd. inaad wax akhrisato oo aad ku raaxaysato waxay saameyn weyn ku leedahay ardayga. waxa uuna 70% kor u kacay maskaxdiisa. daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ay ardayda jecel wax akhriska misana ku raaxaysto wax akhriska inay ka darajo fiican yihiin kuwa aan jeclin wax akhriska, sida dhanka xisaabaadka, ixtiraamka iyo dad la dhaqmida. waxayna ku sii fiican yihiin xiriirinta ehelkooda iyo jacayl ay u qaadaan iskuulka ama jaamacadda. dhanka kale kuwan ku raaxaysan wax akhriska waxay u badan yihiin daawashada TV-ga. waxaa u sii dheer inuu naco iskuulka. marka inaad ku raaxaysato wax akhrinta waxay u horseedaysaa inaad ahaato arday adag iyo mid keenaya dhibco fiican dhanka imtixaanaadka. sababaha aan u jecelahay inaan wax akhristo ayay ka mid tahay. akhrinta waxay kaloo kaa caawinaysaa in aad gasho aqliyadda qofka qoray buugga misana afkaartiisa aad fahanto si aad wax ugu barato. aniga waxaan akhristay buug uu qoray Elon Musk. waan jeclahay buugtiisa sababtoo ah waxa aan ka helay halkan laguma soo koobi karo. waxyaabaha aan ka bartay waxaa ka mid ah sida loo yeesho ahdaaf, sida loo noqdo dhageyste wanaagsan iyo sida aan la isku dhiibin never give up. markan dhiganaya dugsiga ayaan garwaaqsaday in aan kala saari karin lacagta aan leeyahay iyo midda kaleeto. markan fahmay misana waxay dhaaraday inaan ku raaxaysto wax akhriskan waxaad u bedelaysaa in aad tahay busy inaad wax akhriso. waan ogahay midaas, laakiin hadda isku daydo maalintii oo keliya 5 minute ilaa 10 minute oo wax akhris ah adiga oo jooga xaafadda ama sariirta ka hor inta aadan seexan. bil kasta waxaad dhammayn lahayd 1 buug ama 2 buug. haddaa aaminsanayd in aad 5 minute keliya aad wax ku akhriso ama aad leedahay waqtiga igu yar, daawo muuqaalkayga. waxaan ku sharxi doonaa sida aad u nidaamin lahayd waqtigaaga. 2021 waxay ii ahayd isbedel weyn ka dhanka ah noloshayda. waxaan qayb weyn ka qaatay wax akhrinta. waxa akhrintu waxay ii ahayd caado aan la qabsaday, taasina u horseeday in aan noqdo qof isku kalsoon misana wax qabsan kara. waxay kaloo u horseeday sida aan caadooyin wanaagsan aan u samayn lahaa iyo inaan bilaabo YouTube channelka si aan idinkugu faa'iideeyo. waan ogahay markaad telefoonka aad buug ka akhrinayso inaad ku jeceshahay inaad taabato buugga daftarkiisa si aad u dareento inaad wax akhrinayso. balse waa isku mid. commentiga nagula wadaag buugaagta aad jeceshahay inaad akhriso. fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, la wadaagto asxaabta, subscribe inoo saarto si aan u soo badano muuqaalo caynkana. anigana waxay tahay dhiirigelin si aan la wadaago mowduucyo caynkana.